barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa inaanu wax kaga sheegno waxyaabaha ka dhacaya mandaqada bariga dhexe. haddii aynu ka bilowno waxyaabihii ugu dambeeyay ugu cusba oo ay ka mid ahayd safarkii madaxweynaha Turkiga uu ku mareeyay dalalka kala duwan. Erdogan oo ah qof mar walba aanay ka dhammaanayn inuu soo bandhigo waxyaabaha lama filaanka. dhammaadkii sanadkan waxa uu galay socdaal dalalka Afrika oo ku soo gabagabeeyay dalalka Suudaan iyo Tunis. waxaana uu inoo soo bandhigay laba shay lama filaan ah oo aynaan ogeyn oo aynu aad ula yaabnay oo ah jasiiradda Sawakin oo uu dib ugu mideeyey dhulkii boqortooyada Cusmaaniyiinta. waxa uu tegay dalka Tunis iyo xilli ay taagan tahay khilaafaad kala duwan oo Imaaraadka iyo Tunis u dhexeeya. weliba isagoo halkaa ka sheegay hadallo aad u adag oo ka soo horjeeda madaxweynaha Suuriya xilli aynu filaynay inay isu soo dhawaadaan Suuriya iyo Turkigu. waxaana uu hadalkiisa ku sheegay in aan Suuriya mustaqbalkeeda laga hadli karin iyadoo uu taagan yahay Bashaar al-Asad. waxaan aaminsanahay inay soo noqotay xuduudii dalka Turkiga ama Cusmaaniyiinta xilli ay dalalka Carabtu khilaaf dhexdooda ah ku mashquulsan yihiin. waxaan kaloo aan odhan karaa in xuduudii iyo awooddii siyaasadeed ee ikhwaan muslimiinku ku lahaa gobolku ay iyana soo noqotay iyada oo xooggan oo uu hogaaminayo oo horkacayo madaxweyne Erdogan laftiisu. jasiiradda Sawakin sida aad ogtihiin aad bay muhiimad ugu tahay, waxaana ay noqonaysaa mid siyaasi ahaan ay ku khasaartay dowladaha Masar iyo Sacuudigu. waxaana xilligan durbaba aad moodaa inuu khilaafku noqonayo mid isu rogaya dhanka jasiiradda Sawakin oo ay iskaga hor iman doonaan Turkiga oo loo gacan geliyey iyo xulafada kale ee Sacuudiga iyo Masar. Sawakin oo noqon doonta qalcad adag oo military oo ay Turkigu u leeyihiin. waxaynu ognahay in dad haatan ku leedahay saldhig military oo ballaaran dalka Qatar. taasoo warbixinaha ka soo baxaya ay sheegayaan in ugu yaraan 35,000 oo askari oo Turkiga ay fadhiyaan, kuwaasoo ku hubaysan gawaarida dagaalka, taangiyada dagaalka, boobayaasha culus iyo hubka. mana arrin sahlan in ay warbaahinta u dhow madaxweynaha Turkiga qaarkeed ay ka faalloodaan in Turkigu ay fashiliyeen sanadkan inqilaab ka dhan ahaa boqortooyada Qatar. waxayna ahayd warbixin si aad ah khatarteeda u lahayd. warbixinta ay halkaa inooga soo baxaysaana waxay tahay oo ay odhanaysaa Turkigu waxa ay ilaalinayaan oo dhinac taagan yihiin xulafadooda. iyadoo warbixinaha ay ka faalloonayaan warbaahinta Turkigu ay ka soo baxayso in Qatar ay ka badbaaday bartamihii sanadkan dhammaanaya duulaan dhanka dibadda kaga iman lahaa oo sida warbixinahaasi qorayaan ay abaabulayeen Imaaraadka iyo Sacuudigu, kuwaasoo dib ula noqday hungurigii ay ka lahaayeen dalka Qatar kadib markii ay ciidamada Turkigu saldhig soo dhigteen, maadaama labadaa wadani aynan doonaynin in ay iska hormaad foolka fool hala galaan ciidamada Turkiga. arrimahanna waxay ku soo beegmayaan iyada oo xilligan uu Erdogan u gaaray dalka Suudaan oo uu ka furay saldhigga cusub ee military ee jasiiradda Sawakin. inagoo weliba ogeyn in Turkigu ay saldhigyo kale ku leeyihiin dalalka Soomaaliya iyo weliba dalka Chad oo ay ciidamadiisa tababar fiican siiya. خبرة عسكرية كبيرة.
sidaan rumaysanahay dib ayuu u soo noqday oo isaga oo weliba sidii hore ka xoogan madaxweyne Erdogan waxaana uu doonayaa inuu si ficil ah haatan u hogaamiyo mandaqadaasi waxaana uu sidoo kale doonayaa inuu hareereeyo oo dhinacyada ka fadhiisto dalalka Sacuudiga iyo Masar waxaanu kala ogolnahay inay dhibaato dhanka dalalka khaliijka jirto waxaa jira oo si weyn u soo shacbaxaya khilaafka Imaaraadka iyo Sacuudiga laftooda oo ku kala qaybsamaya arrinta dalka Yemen dagaalka dalka Yemen si kasta oo noqdo lagama yaabo inay guusha ku raacdo dalalkan xulafada waxaa laga yaabaa in ciidamadii Suudaan qaybta ugu weyn ku lahaa ciidamada xulafada ee Yemen jooga in ay sanadkan ka howleelaan oo ay ka baxaan iyadoo sanadkii saddexaad la gelayo intii ay colaadda xulafada khaliijku ka socotay dalka Yemen madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir oo malaayiin dollar loogu bedelay ka qaybgalkiisa dagaalkii xulafada khaliijka ee dalka Yemen waxa uu xilligan u muuqdaa nin gutay waajibaadkiisa sidoo kalena dib ugu soo noqday xeradiisii ikhwaanul muslimiinka amaba jabhadda badbaadada waddanka oo ah jabhadda siyaasadeed ee uu hogaaminayo waxaana xulafada ikhwaanul muslimiinka ee bariga dhexe waana marinka ay ku dabafaylayaan madaxweyne Erdogan قدر waxaynu aragnaa inay door balaaran iyana ku leedahay waxyaabaha ka socda mandaqada khaliijka waxaynu ognahay in ay weli halkaa ku sii socdaan waa dalka Yemen ee hub kala duwan oo ay ugu horeeyaan gantaraha balastikada waxaynu ognahay gantaraha kuwa ka mid ah in lagu soo reeyay Sacuudiga oo ay ku duldhaceen magaalada caasimadda Riyaad waxa kaloo iyana jirta in la filayo dagaalka khaliijka carabta ee dalka Yemen ku foogani uu noqdo mid lagu kala dhaqaaqo oo ay Imaaraadkuna laftooduna iskaga baxaan halka waxa qayb ka mid ah xukuumadda Imaaraadka oo doonaya in dagaalkaasi faraha laga qaado su'aasha kale muhiimka ah waxay tahay maxaynu arki weynay Sheekh Cabdalla bin Said meeyse wasiir dawladii Anwar Dadash labadaas siyaasi xaggee ka baxeen ee dalka Imaaraadku muddo 3 bilood lama hayo muraayad iyo muuqaal kala toona ma hubno inay arrimo dhanka caafimaadka yihiin ama arrimo dhanka siyaasadda waxyaabo badan ayaa iska bedelaya gobolka